wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walbo dunida dacaladeeda aad ka joogtaan kusoo dhawaada muuqaal kale marka hore subscribe garee janalkan sidoo kale like inoo saar muuqaalkan waad mahadsantihiin waxaan ku eegaynaa muuqaalkayaga haddii ay buin raalli ka noqdo taliska ciidanka soomaaliyeed ee somalilan oo amar culus ka soo saaray dadka ajaaniibta ee dalka ku jooga sharci la-aanta iyo muddo kooban oo loo qabtay in dalka ay kaga baxaan haddaba taliska ciidanka socdaalka somalilan oo amar culus ka soo saaray dadka ajaaniibta ee dalku jooga sharci la amaba dalka ku jooga sharci la-aanta iyo muddo kooban oo iyagu loo qabtay in dalka ay ka bixi karaan somalilan ayaa muddo 20 cisho ah waxa ay u qabatay in dalkeeda ay kaga baxaan dadka ajaaniibta ah ee aan haysan sharciga haddaba wargelin iyo warbixin markaasi amaba war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ciidanka laanta socdaalka somalilan ayaa lagu yiri wargelin iyo degniin taliska ciidanka socdaalka jamhuuriyadda somalilan waxa uu ku wargelinayaa ajaaniibta sifo sharci darro ah ku jooga dalka somalilan in ay kaga baxaan muddo 20 cisho oo ka bilaabmaysa 28 bisha 7 sanada 2022 ilaa 17 bisha 8 sanada 2022 sidoo kale waxaa lagu wargelinayaa shirkadaha hay-adaha iyo ganacsatada ay ka howlgalaan shaqaale ajaaniib in ay ka shaqeeyaan oo qura ajaaniibta haysata dalku jooga sax ama fiisa ama qaxooti waxaa looga digayaa goobta ganacsi shirkad ama hay-ad ee lagu helo shaqaale bilaa sharci ku jooga ee dalka jamhuuriyadda somalilan oo ka shaqeynaya halkaasi laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan mulkiilaha goobtaasi ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkan ka soo baxay xafiiska afhayeenka ciidanka socdaalka ee somalilan mana ahan markii ugu horreysay oo somalilan digniin noocan oo kale ay soo saarto dhowaan ay ahayd markii maamulkaasi gebi ahaanba laga mamnuucay warbaahinta b b c da ee caalamka la hadasho oo iyadu lagu eedeeyey arrimo kala duwan isla markaana shirkadaasi warbaahineed ee caalamiga qeybteeda soomaaliga gebi ahaanba laga hor istaagay in ay howlaheeda warbaahinada iyo warbixinada iyo barnaamijyadeeda ay markaasi ku baahiso gudaha maamulkaasi somalilan arrintan waxay imaanaysaa iyada oo ay imika walaac soo fotaarayso qaar ka mid ah dadka soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan ee iyagu asal ahaan kasoo jeeda qeybaha kale ee waddanka soomaaliya kuwaasi oo durbaba amarkan uu si toosa u qabanayo waxaana ka mid ah dadka la doonayo in halkaasi ay isaga baxaan dadka iyagu kasoo jeeda soomaaliya gaar ahaana muqdisho iyo sidoo kale etoobiya haba noqdaan muwaadiniin u dhashay waddanka soomaaliyeed dhowaan ayaa waxaa dadka baraha bulshada intooda badan adeegsado waxa ay aada markaasi u falanqeynayeen hadalheenna ka noqotay social mediaha xarig loo geystay qaar ka mid ah wariyaal iyo kooxo kala duwan kuwaasi oo la sheegay in lagu xiray gudaha somalilan oo iyadu aaminsan in ay tahay waddan ka go-aan soomaaliya inteeda badan imikana ku howlan dadaaladii ku aadanaa sidii ay ku heli lahayd aqoonsi ama ictiraaf ayaa waxaa si aada lagu dhaliilaa maamul adag caburin dhanka warbaahinta xarig shacabka loo geysto iyo sidoo kale dagaal xoogan oo ay dowladda kula jirto dadka mucaaradka ahi haddaba haddii aynu soo noqono dhalinyarada soomaaliyeed ee iyagu baraha bulshada caanka ka mrs wall ay ahayd dhowaan markii ay booqatay halkaasi somalilan oo gegada caalamiga ee diyaaradaha ee cigaal airport dib looga soo celiyey kadib baaritaan saacado qaatay oo lagu sameeyey waxay sheegtay in lagu hayay gudaha madaarkaasi muddo dhan ilaa 5 saacadood deetana dib loogu celiyey halkii ay ka timid iyadoo aada u careysan oo muuqaal ka soo muuqatay ayay waxa ay dhaleeceen iyo dhaliilba dusha uga tuurtay qaar ka mid ah shaqaalaha iyo dadka maareeya eeraboorka ee gudaha cigaal airport ee magaalada hargeysa iyada oo sheegtay in markaasi faquuq ay ku hayaan bulshada soomaaliyeed waxa ay sheegtay in warqadda gohomka loo yaqaano ay jaratay oo somalilan ay iyadu safarkeeda halkaasi ku wajahnaa gebi ahaanba uu ka dhicisooway waxaana halkaasi ku casuumay oo markaasi martigelinaya wiil u dhashay haddaba gudaha maamulkaasi somalilan inkasta oo mrs wall iyo qaar ka mid a dadka social media intooda badan adeegsado la sheegaya in ay aada markaasi uga cabanayeen sida markaasi guracan lagula macaamilay gudaha garoonkaasi cigaal airport dhowaana waxaa sidoo kale la xidhay islamarkaan la sheegay in jirdi loo geystay
gabar la yidhaahdo Samee Qurax oo ka mid ah gabdhaha kasoo jeeda Muqdisho oo iyaduna halkaasi ku sugneed. xarigeedana waxa uu noqday mid aad baraha bulshada u qabsado, sidoo kalena wax la iska weydiiyo xarigaasi iyo siyaabaha uu ku yimid. waxaana dad badan oo dadka social media isticmaalintooda badan ay u kala qaybsameen xarigaasi sharci ahaantiisa, xalaal ahaanshaha xariga qaar ka mid a dadkaasi, iyo sidoo kale dadka looga biyadiiday in ay gudaha Somaliland u galaan. mana ahan markii ugu horreysay oo warbixino noocaas oo kale ah aynu ka helayno gudaha Somaliland. waxaynu ognahay in had iyo jeeraale ay jirto dhibaato ay ka tabanayaan qaar ka mid a bulshada Soomaaliyeed oo iyagoo kasoo socdaalaya meelo badan oo Soomaaliya ka mid a. haddaba dadka aad u falanqeeya arrimahan ayaa ka hadlaya dhibaatada bulshada Soomaaliyeed ay kala kulmaan maamulkaasi Somaliland. dadka qaarna waxa ay leeyihiin Somaliland maxay markaasi Soomaali baan nahay ay iyagu leeyihiin, maxay tahay sababta ay u bacsanayaan Soomaalida iyagu kasoo socdaalaya qeybaha kale deegaanada bulshada Soomaaliyeed ay kasoo jeedaanba. arrintan ayaa ahayd mid markaasi si weyn social media u qabsatay, islamarkaana dhaleeceen caalami ah xitaa muteysatay. waxaana aynu ognahay in dhalinyarada Soomaaliyeed marka la eego dhanka social mediaha kuwooda aadka markaasi caanka uga ah, islamarkaana looga bartay muuqaalada halkaasi ay ku baahiyaan, siiba marka laga hadlayo calanka iyo dareeska markaasi wadanka Soomaaliya ee astaanta u ah Soomaaliya. in inta badan xitaa marar badan lasoo tabiyey warar la xidhiidho in dad badan oo ku labisnaa dareeska markaasi labiska dharka sportiska ee Soomaaliya ku qoran in qaarkood lagu xidhay gudaha magaalada Hargeysa, in sidoo kale qof caalanka Soomaaliya sitay lagu xidhay halkaasi, in Bilaal Bulshaabi oo xilli halkaasi socdaal ku tagay sidoo kale loo bacsaday sabab la xidhiidho haddaba calankaasi uu sitay iyo arrimo aad u kala duwan. waana qayb ka mid a geedi socodka Somaliland ay ugu jirto sidii ay gebi ahaanba uga go'i lahayd Soomaaliya inteeda kale. walow dowladda Soomaaliyeed ay aaminsan tahay Soomaaliya ama Somaliland inay tahay gobol ka mid a gobollada Soomaaliyeed, hase ahaatee haddana waxaa had iyo jeer jira khilaaf iyo sidoo kale isfahan la-aan markaasi soo jireen ah oo u dhexeysay dowladahan oo arrimo markaasi ku saabsan dhanka aqoonsiga marka laga hadlayo sidoo kale siyaasad. hase yeeshee haddana waxaa dadka intooda badan ay aada ula coga muujinayaan xarigan isdaba joogga ah, sidoo kale musaafuriintan lagu sameynayo dadka Soomaaliyeed iyo dadka laga ereeyo gudaha Somaliland oo qaarkood aad markaasi walaac xoog badan ay ka muujinayaan digniintan ay soo saartay laanta socdaalka ee Somaliland ee ku saabsan in muddo 20 cisho kadib dowladda Somaliland ay tallaabo adag ka qaadi doonto qof alaala qofka u dhashay meel aanu ahayn Somaliland ee halkaasi jooga ama dadka sida sharci darrada halkaasi ku jooda oo iyaguna digniintaasi loo jeediyey.